يا وحكو ديل كاتا محادها هاي بحين هاي ماي اوكي ماي ما كنت جرت اسك دلمونا سكواسو قلاير وركيتو بقلاين حيبتك شكي سيدا خف تاقف كلها بتقعد يا واو بس ثانية أبو فيسبوك ملسكو عكر لكن هو فيسبوك ملسكو عكر I think سيدي لطحي وايبا تهيبو I think ما بأهم Our beautiful family كون فرحية كين دا يحسن هاي حال دينا كورا مسيتهين يا جايز وركا كان محايسين بارتينا كان What's news هلا ضيح فرحية دماشي وكو سلامي ما شاء الله فاميلي الله نحفظه آمين يا ربي ضيح أوي وناكسن الكيجي أي أبو مارة وكو سلامي أي مارة أبو وكو سلامي ألا ويندي أجلس مكالا لويا يا ألا ويندي أجلس مكالا أصو جلنا إن شاء الله مركب نوصو بدي عمل يا إن شاء الله تعالى عادي مسيح تدمي محانا وقبسو جدنا أدنو داوان وساي إذنكم مسيح تدمي أما عادي محاوردكم عادي أنت سيحني عادي من داوتدو من أركتدو لا أنت اسمع ورد الآن كوديك انستغرام ومقدي ونقصو قرتين عن الهوية فيسبوك افتينا كده هذا هاي قبلها وحي قبر هاي نينكي ناك قبي Hey ladies so حاضر we have a big news the boss lady and my best singer ضيح سلامة دمانتين ما فافويت couple سلامتو waa idinka qaadnay waa mahadsantihiin kulligiinba farxi caawiya life kusoo qoor qabtay hadda waxa ay soo qoor qabto waxa waaye hadda waxa ay ganacsi la bilaabay hoola la bilaabay in la hadlo la soo galo markaas waajib ay noqonay xaabi kasaf ani maala yacni bisa nicbaa inaan soo galgalo sax waa caadi waa ka ha ina maala yacni soo galo iska hadla bisa diida laakiin wixii sax waa laakiin wixii muhiim ah in laga hadlo waa muhiim ma fahanteen gabdho laakiin ma u badnamo oo wiil la badan والله قبلنا ويكجران هذا قبل موها وحكسته ويلش بدن ألين because of أنا آوي قبله آوي يفرح جناي كورا المقعس يفرح جناي جنايف كي وإمادين والله قبلها وصوب بحسمين Hey ladies مكو جرتين دمانتين دماش سيدات بين سلام يا عدنان حاجي سلام الله والله أوكي هذا قبلها وإمادين مو قبل بدنا كجران هاي قبلها انتي إلى سعوتي وأوغايين إن حوايا لعب عصب لو صوضو عبايد لو صوضو خمارة لو صوضو أويدين كامسون لكن انستغرام كله لقى سعود ما حيوت ها صح waa inta wali makashaacinين فيسبوك wali makashaacinين haye gabdhaha qalin jibinaayo kale gabdhaha labiska jecel kulligood waxa ogaanaysiin inaad dalabaad khaasna ii dalbay oo maxaa la dhahaa cabaayado oo last design modelka u dambeeyay oo qurux badan oo gabar xiri karta xamar waxa la keenaa cabaayadaha maamooyinka ay xirtaan sida saxda of course laakiin cabaayad gabdheed ah hadda waxa waay idin soo wada ana idin soo sameeyay magacayga waay designkeyga waay lady cabaayas ma fahanteen marka ogaada la socda insha Allah arbacada oo hadda soo socota arbacadeeda kaleeto way imaanayaan jimca xayisiinta u sameeyna khamiis ilaa sabti
waxa waa insha Allah way gadmayaan, waxa la bilaabaa in la iibiyo. marka ogaada la socda. labis waxaa la rabaa gabdhaha labis waa ku dhibtoodeen oo waxay dhahaan Nairobi han loogu soo dhiibay cabaayad iyo waxaas xagga ka rabnaa. waa fahanteen oo maleena waa idin fududay anaa Soomaaliya hadda idinku keenayo nashqad walba walibana waxa 100% u baa nashqadaha idin soo sameynayo hadda soo wado 100% waa ka helaysiin. all beautiful waxa waa because anad waa labiska waxa waaye meesha ugu dambeys inaad ka labisaa jecla aan ka xirto. maxaa ku soo haray marka sidaas oo kale taana maxaa la dhahaa ugu fikirey inaa idinkane aan isku labis u noqono. magaaladan labis ma yaal waa ognahay, waa wada hubnaa, waa qof kasta og. because ani maanta markaa labis u bahay Soomaali labis dam ka iibsado oo maba soo helaysid bo. of course benta ma wax design oo gaar ah hadda dukaamada xamar oo dhan dukaankan cabaayad taala dukaanka kale way taala dukaanka mid laga helaa tan kale waa laga helaa. kaasna labis ma la dhaho waa ogtihiin. labis waxaa la labiska unique ah. labis waxaa la dhahaa labiska oo waxaa ii sheeg oon qofna kula wadanin quruxdiisana wato. hadda gabdhaha qalin jibinayo kale inta badan waa arkaa labiska ay xirtaan. wallahi ani maxaa la dhahaa ma u doori lahaan. waxaa wax idinkaga dooray waxaa ii sheeg wax idinkaga dooray meesha ugu dambeyso oo ugu quruxda badan ma fahanteen. marka waa kaasaa la socda. qamaarada sidoo kale nooci ugu dambeeyay boorsooyinka sidoo kale waxa ugu weyn hadda waxa saaran cabaayadaha waa meesha ugu weyn hadda cabaayad iyo qamaarkeeda la isku helaayo. cabaayad iyo qamaarkeeda waa sax foxka ugu weyn kaas oo hadda ku yahay. jumlo iyo tafaariikh baa bixinaya waa arki doontiin. jumlo ma bixinaa jumlo waa bixinaya insha Allah. online ahaan ku iibinaysaa. aniga online le waaye qof kasto iga soo dalbana diyaar gurigiisa lagu keenaa free delivery waaye. delivery waa free ku helaysaa. waa fahanteen amaleena. marka waxaan rajeynaa inaa wax badan ka heshiin. Soomaaliya hadda ka hor waa la dhigi jiray dharna loo soo dhiibay laakiin idinkaan la dhihi doonaa dhar noo soo dhiiba insha Allah. qof kasto ganacsada ee wuxuu sameeyaa boosaas jooga dhar la'aan aan naflahay cabaayadaha ma haysan farxiin naga soo gaarsiin. okay qof kasta marka hadda mid idin sheega marka boosaas meel kasta meel kasta waa geena kasto iyo magaalo kasto in laga helo hal qof oo manager ah oo maxaa la ii sheegay alaabta isaga lagu hagaajiyo. marka maxaa sameynaysiin hadda inta qof ee daneynaysa ee u baahan rabo waxaa sameynaysiin oo ila soo hadlaysiin. Hargeys arqaano samee caana waan dhisan karo. maya Soomaaliya ma laga helayo harqaan oo ii sheeg ani dukaan Dubai hadda igu yaalo. Soomaaliya ma laga helayo qof si sax wax u talaayo. okay sidoo kale Soomaaliya waxa waa Soomaaliya wax talay Soomaalina balan ma lahan oo design-ka ani keensado qof kale loo sameeyna laakiin dad aan Soomaaliyeyn aan wixii hadda sameeynayo oo maxaa la dhahaa ii sheeg design-keygana ma la bedeli karo magaciigaana ku qoran laakiin hadda marka aan qof Soomaali ah heshiis la galo wuxuu sameeynaa design-ka anu fikri waxa aan keensado qabana isla qof kale u sameeynaa. waxa lagu dhahay farxi Europe ma ku soo diri kartaa. waa ku soo diraa. UK ma ku soo diri kartaa. Europe oo dhan America maxaa la ii sheeg everything meel kasta wadan kasta qaarada adduunka oo dhan laakiin marka ugu horeysa halka ay ku nooshahay ma laakiin hadda marka keeno meel kasta qof kasta joogo qofkii ka Soomaaliya meeshu joogo waa lagu geenaa insha Allah. marka ciil labis ina waxa la rabaa aan ka baxno haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah. ani hadda marka meel aaday wallahi hadda cabaayad badan ay yeelan saa u soo gaday oo sayil inta u soo gataa dana iska dhigo aan xiranin waxa kalifaay wallahi billahi been maan gurigeyga inta cabaayad ala xad ma lahan haddana waxa way wax fiican ma ahan. dadku waxay sameeyaan horta design fiican dadka ma u dalbaan dukaan wax yaal iska soo gataan. marka insha Allah hadda wixii dhan wax waa ka bedelnay. dadka lacagta haystaan ganacsiga iska daawa iska keenaan labis laakiin fikir ma haystaan dadka Soomaaliya joogo. waxa lagu dhahaa South America ma soo dirkata dibadda. dharkan waxa dhahdeen waa insha Allah waxa dharka arkaysiin because dharkayga ani waxa waaye in xayeysiis u sameystaa rabaa markii insha Allah la keeno sabiraana waa ka soo sameynaa video-na waa ka soo sameynaa marka aragtiin dharkeeda iyada le xayeysiisanayso markaas maxaa la ii sheeg sidaas oo kale famous ku noqonaya qof kale ma xayeysiina uma baahnaa in cid kale u xayeysiiso iyada xayeysiinayso markaas ay xayeysiinaysaa cid walba soo dooqan kartaa design walbaba maraa la xayeysiinaa kaligiis kulliga waa la wada keenaa. maxamed qoslay ma brother oo ku salaanay anigii iyo walaasha isla joognaa warka keen
marka waxaa kaloo inii sheegayaa tiim qalin jabinaya ayaan nahay xageen kala soo xiriirnaa okay waxaan inii sheegayaa meesha ay la soo xiriiraysiin horta pagekan pagekayga waa ogtihiin qof kasta oo danaynayo pagekan ay la soo hadlo because of an hadda intaa keenayo I know waa ogahay maalintaa keena isla maalinkaas wallahi way dhamaanayaan waa hubaa of course baby hadda Instagram-kayga dad badanaa hadda I know wallahi billahi bismillah anagoo wali arkin yani wali dad badanaa hadda diyaar ah oo ii sheeg oo rabaan marka qofkii xilliga qalin jibinaysiin waxyaabahaas oo kale design-ka keeshiin sa idin kugu soo badiyo markaas xilliga qalin jibinada dad badan oo laga yaabaa hadda gabdho badan hal design loo dalbaa hal week loo ka maqnaana markaas waxa loo keenaa maxaa la ii sheegay 10 waxay doonaan inta dirsan u baahan yihiin loo keenaa dalabaadka waxa waa ani waa ogahay because ani waxa waa ogahay taada kale qof kasta yani ii sheeg you ka walwalin in maxaa la dhahaa wixii qalad waayba badeecada adoo arkin in lagaa gado taas waxaa ka sii fiican oo ku bishaaraysanaysiin ani waxaa sameeyay sida saxda wallaahi dharka ma arkin oo ani xoolo xalaal inaa gataa rabaa sababta waxaa sameeyay ii sheeg cabaayad waa diray marada quality-geeda waa arkay wax kastoo la soo saaray bir khal saaray shay kasto keenay way aragtay kadib hadda waa haystaa sambal oo yani because ani dadka wax ka gadanayo ma ahan maanta wixii aan gaday in bir lagu soo noqdaa rabaa bir waxa rabaa meel kasta oo qof wixii iga qaatay inuu amaan iisoo sheego farxii waa fiican wax fiican of course beenta ma marka ani waxa jeclahay in biri maxaa la qof kasta wax iga gato oo dhaho waxaas wax fiican ay ahaayeen laakiin marbi dadka qaar oo la dhahayo way xumaadeen waxaas way halaabeen marbi marka waxaa sameeyay dadaal sameeyay cabaayadi waa la soo sameeyay waa la ii keenay maxaa la dhahaa ii sheeg hadda maradii waa arkay wax kasta waa arkay waa ku qancay 100% cabaayadaha intaas aan joogay Soomaaliya cabaayad aan xiranay marooyinkooda wallahi ma u dhiganto wallahi way ka sareysaa waxa la burcaan joogaa si ku heli karaa waa helisiin waxa u maleynaa dadka burca jooga waxay ka heli karaan qof Hargeysa joogo haduu haayo burca sidoo qof joogo maxaa la ii sheeg marka meel kasta waa ka helisiin marka ganacsiga hadda dhibka jira wuxuu yahay qofka jooga Hargeysa looga la xiriiri karaa Hargeysa looga soo dhiibi karaa delivery ahaan I think marka waxa waaye ii sheeg horta tijaabo waa mareen biri okay tan tijaabada waa gooni oo yani ana idinku huba anna waa hubi waa tijaabi marada waa iqancisay tan labaadna waxay tahay quruxda marada idinkoona arkin qof wax ma gadanayo of course okay dadka sawirayso insha Allah waxay imaanayaan arbacada qamiis waxa la bilaabay xayeysiinteeda iyo dharkii sida loo soo bandhigi lahaa oo maxaa la sheeg sida yihiin marka jooga ugu horeeyo la soo bandhiga markaas ma waxay timasa hal mar ma la wada xayeysiin ama hal loo xayeysiin wallahi hadaan waa yaabanahay horta mid ka dhacdo ma lahan mid ka dhacdo ma lahan marka aan waxa ku wareersan horta idikana isla wadaagno week ina xayeysiinteeda wada sidee fiican in kullis idin soo wada bandhigo hal mar in soo wada bandhigo waxa ay kala fiican yahaan maxaa la ishay dirsinkiiba hal maalin xayeysiis okay waa isku raacna waxa waaye dadku waa dhow ku dhex wareerayaan waxa idin sameeyna mar dirsinkiiba halkiiba xabo alaga xayeysiina markuu dirsinkaas dhamaada kan kale halkii dirsin maxaa la ishay xayeysiintiisa waa inay hal maalin ku baxdaa maxaa yeelay halka maalin laakiin ani waa huba ani waxa waaye isheeg sumcadeeda waa jeclahay farxiin oo keen dimaasho ku insha Allah waxa waaye mataqaana adduunyada ma aragtee adduunka ma aragteen hanti la'aan waa laga baxaa qofka markuu faqri yahay lacag uu heli karaa laakiin adduunyada waxa aan helin waa sharaftaada de mar dhunta ma soo laabanayso that's true abay farxi waxa lagu dhahay saan ku heli karaa UK ayaan joogaa si ku heli karaa marka waxay noqonaysaa horta marka hore in halkan la keeno dib ma lahan waa wax misla weyneen waa helaysiin dharka markaas Nairobi loo soo diraa Nairobi I think toos maxaa la DHL lagu diri karaa adduunka meel kasta marka waxa ii sheegayaa marka ku soo dhawaada farxi abayas UK dadka dhan UK Europe ay wada badan yihiin iyo maxaa la sheegay halkan iyo burco wallahi dartiina ma aaminaysiin hadda waxa waaye hool dheer cabaayadaas u galay dukaan inta taga ka soo gadanayo ma ahan anoo Soomaaliya jooga Dubai dukaanka laga sameeyay laga hagaajinayo qof la kireey oo sameeynayo oo heshiis la galay intaas ma yaro WhatsApp noo sameeyay WhatsApp gaara sameyn rabaa sax waaye WhatsApp private oo iyada oo businesskeeda bis ah sameynay insha Allah iga soo gaarsiiyay farxiyay marka insha Allah waxa kaloo jiraan sheegeen dad waxa jir dhar lamaanayaal jecel oo dalbadaan wixii ma arkin oo dalab oo gooni ah waa gooni waa loo dalbaa laakiin hadda waxa saxda oo sheegeen hadartaan
diyaarsan waa cabaayadahaas waana ka qanci doontiin after week haduu ilaahay hal isbuuc kadib diyaar waa xaysiinteeda markii la bilaabo hadduu amar kala dhicin oo maxaa la dhahaa waxa anaga waa tashanayna tii rabbina gooni waaye marka aniga waxaa inta badan aan ka fikri sharafkeyga waaye qurux iyo tayabo insha Allah waxaa rajeynaa inaad ka qanacdiin oo ka heshiin it's all original marka waa kaasa ogaada Germany please iga soo bilaabo marka hadda waxaa sameynaysiin hargeysan jooga waa rabaa qaaliye maxaa lahaa ii sheeg dadkan sidaan kasoo dalbanay magaalooyinka kale oo dhan aniga UK aan joogaa farxii goorme bilaw xaysiinta aniga haddaan warkiina maqlay waxay bilaw insha Allah khamiista soo socota khamiista waxay siinaa bilaaba sawirna idin kaga soo qaada cabaayadan kor ilaa video idin kaga soo duuba waa ku sirma iyo quruxda daysas ma maleyneen ma dhaceyso waa arkeysiin horta caadi ma aha laakiin ma sha Allah galmudug waa la keenaa taas waajib waa bilawga waa laga soo dejinaa insha Allah magaalo kasto qof aa loo sameeynaya qofkaas aa lagu hagaajinaya marka size la dalbaayna dadka dhan qof waxa waaye size la dalbaayo 54 waa meesha ugu yar 56 ya 52 waa ku jira ha 54 ilaa 62 ها كلب intaas waxa waaye ha intaas waa ay ku filan tahay insha Allah ina ka heshiin ku maxal laha ku farxadin waa rajeynaya intaas in ka badan bo ma fahanteen marka hadda waxa sababta ugu weyn aan u saaray cabaayad diirada waxay tahay Soomaali cabaayad mataaliya been isku sheegin I love you guys Sajin Abdirashid my brother wa ku salaamay we love you too thank you marka insha Allah marka insha Allah waa isku ognahay sidaas ani waxaan sameynaa WhatsApp gooni qofkii hadeertaan oo muhiim u ah hadeertaan oo ii sheeg marka ay imaado dadka ku aan ka dhigi doono page-ka ay la soo hadlaan si ay hadhow ugu tashto insha Allah hana ka walwalin hadii in case xataa ay idinka go'aan waxa waaye maalinta la keenadana maalinkeeda kale waa la keenaale ma fahanteen hal week leh ugu badnaan ay maqnaanayaan haddii in case xataa ay dhacdo ay kala go'aan oo yaraadaan ani waa ogahay hal maalin xitaa ma gaaraan hal maalin dhamaadkeeda cabaayadaas ma isi yeelayaan maalinta ugu soo horeysa soo xayisiiso marka maxaa baa ilaahay horta naf hana ugu gaarsiiyo cimri aan ku xirano ilaahay hana siiyo waxa waaye sidaa jecelnaan ilaahay noo sameeyo laakiin waxaa rabaa ii sheeg labis waxaan joogaa Jarmalka sidee ku heli karaa wiilasha oo xaasaskooda oo rabaan horta discount fiican loo sameynaa wow beautiful because gabar kasta dumaashidii waxa waaye waa jeclaan because dayax markuu wax ii keeno ila soo jeclad aad ugu farxaa marka waxaan sameynaa wiilasha si gaar ahaaneed aaba discount loogu sameynaa xaasaskooda u gadanaya wiil kasto xaaskiisa u geenaayo wax badan aa discount loo sameynaa surprise ka ma aha xaasaska waxa farxiyo jecesha araga xaasaskooda jecel oo hadii oo wiilkii hada xaas leh gabar yar heesto ha ii soo sheego waxaan u sameynaa si gabadhiisa yarta iyo xaaskiisa isku cabaayada u sameynaa kaal iska arag waxa waaye asalaam alaykum walaal 60 u baahanahay sidoo ku heli karaa waa diyaar 60 qiimaha waa intee wallahi qiimaha insha Allah qiimaha waa iska gadaalan ka hadleena dib ma lahan kulli qiimaha oo idin ajibinayo waxa qiimateeda kale waxa ka fiican cabaayada marka aragtid waxa waaye tayadeeda iyo quruxdeeda qiimo waa ku iloobaysaa hadana qiimaha suuqa idinka siiyo oo maxaa la cabaayadaha idinka gadaayo ayagoo cabaayad jirta ahayn intaas leedana aan idinka siinaa insha Allah waxa waaye qiimo ku dagaaleeno why I get discount a lot high but not as it's my horta fiiri horta delivery free idinkaga dhigay adoo gurigaaga jooga lagu keenayo dib ma qabtaa delivery-ga gurigaaga jooga adoo guriga iska raaxaysanaya lagu keenaa waa lagu soo wacaa bartaada lagu keenaa maxaa ku soo haray wala aniga naagteedii gabadheeda oo rabaa wiilkan yiri wiilish ma arki hadda jaanis ay sitiin alla to my brother aniga inta u iibin dumaashidii ana u keenayo ma fahamtay waxa waaye wiil kasto hadeertaan oo gabadhiisa yarta iyo xaaskiisa u rabo hada gaar ha ila soo hadlo si aan ugu dalbo cunug yar iyo maxaa waaye marwadaba insha Allah ani ninkeyga soo dirsanaasid adiga laakiin xabiibtii bas waaya waxa ka cabsanaa inay gabdhaha xitaa bas waa laakiin khiyaaniga daaya ani waxaan dhahay inay soo dirsada xaaskeyga rabaa cabalaya yaali qiyaamin aan daacada wax idin kugu sheegay oo yar yar oo aan u rabaa from Hargeysa binti Yusuf insha Allah waa diyaarina saddexda gabdhood daadooda la soo sheegay wax oo dhan la soo sheegay insha Allah WhatsApp kan jam zaid waay
walaashay farxi waxaa u baahanahay cabaayad konton ma la helaa laakiin konton iyo lix waa jirtaa konton iyo laba laakiin waa la helaa I think way jirtaa haa fiiriya adiga maadaama oo qofka asaga dharka ku tolaya lambarka marka hal mid jirto halka mid oo jirto waxay tahay soo iibsanoonin ani waxaan soo gadanayma waxaan ii sameeyay waayo waxa sameynaysiin waxba walwalina waxa waaye marka horta keeno oo aragtiin ka heshiin qof alla iyo qofkii soo jeclaado ka helo waxa uu sameynaa isla markaas dalba xataa week ma ka maqnaanayso insha Allah hadii daahdana waxa waaye maalinta dalbatid maalinteeda kale way kula taalaa miidin xumay markaas Norway aan deganahaysan ku helayaa ma sha Allah walaashay abaayo konton isdeeda aan rabaa xabiibti insha Allah diyaar waaye Turkiga ayaan joogaysay ku heli karaa macna waxaan isku dayaa wadan kasto oo adduunka ku yaalo inaa qof ku sameeyo cargo la saara dhib malahan cargo laakiin waxa aad u fiican inaa wadan kasto markan inaa qof ku sameeyo waa isku dayaa bal hadii qof marka ku sameysatid Dubai maadaama saas loogu diro qof inta u baahan dadka loo diro adigana kula xisaabtid bis dhib malahan taas insha Allah marka maxaa la ii sheeg kan wuxuu ahaa businesska anaga naga soo baxay hada waxa waaye waxa live kan usoo galaa waxa soo galna waxa waaye in akhbaartaas idin sheegno awana make her beloved beautiful gift marka waxa waaye waa fahanteen waxa usoo gala waxay tahay ii sheegeen kaliya in aad idin sheego waxaan rabaa 62 diyaar waaye farxi askeyga gabadheeda ayaan u rabaa fiiqi wiilkan wax badan ku konton isdeedaan rabaa xabiibti diyaar waay qaybta dalabaadka ayaa ku fiicanahay aan idin la shaqeeyo dumaashi haliya insha Allah dad waaba qasab in la shaqaaleysiyo hadii Ilaahay raalka ahaado laakiin waxay ila tahay dad kala shaqaaleysiin doona inay dumar u badan doonaan dumar la noqon doonaan kulli waa arkeena wax weyn ma ahna dadkan yani sida rabo yani waxa waaye online wax ku gado yani dukaan ma rabi kos dhibaatada iska badan wax walba waxa waaye dukaan ma sameyn kari ana dukaan ma sameyn kari gabadheed yartane waxa waaye way yar tahay shaqaalana ma ku halin kari marka wixiga online la ku sameeyna marka idinku waaba ka qancaysiin waxa waaye wax kasto delivery wax kasta sabirkiisa iyo videogiisa dadka xamar joogo way u dhacatay dadka xamar joogo wallahi nasiib fiican ay leeyihiin free delivery leedahay free delivery leeyihiin hore looga keenaa wax kasto saacada dalbadaan 10 daqiiqo 60 waa helaysiin 60 waa u badan tahay 60 konton isdeed ma cabaayad aan ku jirin 54 58 56 62 ma jirtaba sidaas loo soo kala sameeyna marka insha Allah waxa live kan usoo galaa ahayd inaa idin update garay idin sheego diyaar ahaada abaa maxaa lagu bixiyay magaca boss lady iska daaf dumaash waxaan rabaa marka hada waxa sameynaysiin insha Allah waxa marka sameynaysiin hada qofka kasta oo daneynayo oo baahan hadda taan fariimiisa hareebto page-ka ay la soo hadlo and then WhatsApp diritola isku day inaa WhatsApp gaar sameeyo waa idin soo sheega WhatsApp kane shaqada way socotaa marka farxiyo abayas online page la dhaxno jira hal sofa loo garay asagana marka soo dhigaya insha Allah laakiin waa marka laakiin hadda waa si xaysiina page-ka sida uu sii helo dad followers marka dhamaantiin oo mahadsantihiin aad u mahadsantihiin anna waxa waaye waxa mar walba u taaganahay qancintiina sida ku heli karaa Turkiga sida ku heli karaa waxaan joogaa Europe waa rabaa ma heli karaa idinka horta marka hore waxa aad iyo aad u fiican inaa aragtaan marka la xayisiinayo dharka maya ani wallahi waa ibahuba fiiri ani aad u huba inaa ka helaysiin la dhacaysiin ana jeclaan doontiin taas ani waa ku kalsoonahay 100% ku kalsoonahay beautiful marka waxa waaye teed kale waxa idin sheegaa qof kasto had daneynayo u baahan inta ay la soo hadla si hadhow markii la keeno uu maxaa la number 1 diyaar u ahaado insha Allah ta'ala marka saas la socda aadaan u mahadsantihiin ani mar kasto idinka idin taaganaa qof kasto xataa waxa kale idin sameeynaya in case haduu jiro design aad jeceshahay in lagu sameeyo sawirkiisa ay soo dirsan kartaa waa ku sameeynaa design ka u baahan tahay waa ku sameeynaa wax magaca kugu qoran waa ku soo sameeynaa oo magac lagu soo sameeynayo wax kasto adiga markaas ka helayso ku soo sameeynaa insha Allah waxa u galay qancintiina waaye waxaan dhan u sameeyay qancintiina waaye marka insha Allah marka waxa sameynaysiin igala soo hadla page-kayga
gabdhaha qalin jibinayo maxaa waa mideeda kale mid kale jirto cabaayadaha waa dareemaysin cabaayad habeenkii la xirtaa jirto cabaayad maalinkii caadi loo xiranayo cabaayad qalin jibinta loo xirto wallaahi cabaayadaha iska keen keliya ma aan iska xira ma ahan cabaayad habeen loogu talagala jirto mid maalin iyo mid gabdhaha qalin jibinayo horta gabdhaha qalin jibinayo insha allah sidaa rajaynayo gabar kastoo sanadkan ugu soo aado xilliga qalin jibinayso labis waa haysataa labis uu kugu dhacay anaa ku hubo taas balan waaye insha allah xitaa waxaa soo sameynayaa dalab qaas hadda ay xiiseynayso duu jiro ay soo dirsan kartaa waa idiin soo sameynaya laakiin inta ani idiin sameeyey aaba ka qanciisiinba waa ogahay waan u hubaa ani marka insha allah waxaan rajeynayaa caafimaad badanna niiriyana anaga ilaahay hanaga dhigo kubi caafimaadkaas ku ganacsado caafimaadkaas ku xirto insha allah marka waa mahadsantihiin waxaa waaye intaas kala soconaynaa instagramkeyga iyo pagekan insha allah kala soo xiriira guys I love you so much bye bye kuwa qalin jibinta diyaar waaye munasagal diyaar waaye marka insha allah waxa waaye gabdhaha horta qalin jibinta labis ka seexda gabar walba qalin jibinaysa kii labis ah ka seexato anaa diyaar la ah maxaa waaye sheeg in marka hadda waxaa sameynaysiin qof kasta pageka qofkii muhiim u ah pageka igala soo dhow waa ogahay ani way dhamaanayaan waa ogahay inkastoo haddana gadaal laga dalbaayo laakiin waxaa ii sameysiin lambarka aragtiin iyo waxaasoo dhan pageka igala soo hadla si gaar ah u xiriirinaa caafimaadaan marka idin rajeynayaa caafimaad badan ku waara idinkan ilaahay idinka dhigo kuwii caafimaad ku xirto ana ilaahay ha iga dhigo tii caafimaad ku ganacsato isha nacabka ilaahay hanaga qabto cadowga iska jiraa marka waxaa waaye cadowgana qur-aankaa la badsadaa ma fahanteen marka waa kaasaa waxaa kaloo mahad gaar iska leh caajigayga dayaxadde oo waxaa waaye garabkayga taagan taas waajibay ku tahay macaan moogido ها وحواي ضيح قفك كلي قربكي تاجن أسواي قفك كلي فكر إلى سماء أسواي الحمد لله قبلها جناعسي قوته أنت بدن وحكى في عنا هاي حاجة وقربكي تاجن مركز وحواي فكر إسينايو الحمد لله وحواي إلهي كسي والوحمديان معدو إلهي كسيستو إسكاي المآن قفك نصيب له الوالد كي يدعي الحمد لله وحواي سجن وكما تسيي هاي تنوي سستن حاليا بكس وحواجب كي جودن ويا مانا تعدي marka waxa waaye alxamdulilah marka waxa waaye insha allah waa ku mahadsantaadine because fikirka waxa waaye qof kaligiis ma fikiri karo qof kaligiisna wax qurxoon ma keeni karo mar walba adig inta aan garabkaaga taaganaa waxba don't worry bas insha allah hadda waa kaasay fanaankiini wuxuu design gareeyay hadda mid ma ogtihiin gabdhaha waxay sameeyaan waxa boqolkiiba boqolka qurux badan wiilasha design-ka ay sameeyaan hadda ogtihiin hadii kala design-ada wax badan ku leeyahay ninkan waxa waaye design-ka wax badan uu ka sameeyay marka insha allah ilaahay wixii is jecel wixii is qaw ilaahay cadowga dhexdooda ka saaro ilaahay waxa waaye kuwa isku raaga ha ka dhigo marka gabdhaha waxa waaye xaasaska leh ragiina maxaa la dhahaa xafita wiilashana sida dayaxo kala noqda oo xaaskaaga waqti si maxaa waaye fikirku kordhi ya sax waa been ma talada wadaaga dad waxay dhahaa dayaxi farxiyo dayax waxay ku caayaan ninkan nacas waaye maxuu naagtiis ugu yahay war idinka caqli ma qabtiinbo markuu ninkaaga kula talinayo naag wax ma uga baahnid qof dheeraadna wax ma uga baahnid tala kale qof ma uga baahnid ana alxamdulilah waxa waaye ani sirteyda iyo taladeeda iyo wax kasta dayaxay ku jirtaa aynu waana hubaa ani markii dayax aan fikir kastaasi aan kala tashanayo markaa fikir kastaasi weydiinayo markasta wuxuu iga siinaa fikirka iyo talada meesha ugu fiican isaga sidoo kale because I love you marka waxaa mataqaanaa adiga marka xaaskaaga wax qabanayso markay ganacsi sameynayso marka adiga kuley wax iyada maxaa la ii sheeg marka iyada sameynayso wax iyada u gaaray marka sameynayso adiga xil weyn ku saaran waxa ku qasbantaa marka inaad maxaa la ii sheeg marka waxa ku qasban tahay in xaaskaaga ama qofkaaga kala taliso meesha ugu wanaagsan meesha ugu quruxda badan meesha markay baridad hor istaagto ama waxay iyadu leedahay bandhigto meesha la dhihi karo yani la dhihi karo oh my goodness wax wanaagsan ee qoftaan wadaa marka ma sha Allah tabarakallah taas aan waajibkayga u arkaa wax aan maxaa la ii sheeg aan asxaan ku sameynayo ma arko marka waxaana kalifaa waxa isku soo dhawaashaha iyo wanaaga iyo farxadda iyo jacaylka aan iyada u qabay iyo waxa naga dhaxeeyo maxaa la ii sheeg marka raggan waxaan kula talin lahaa dhalinyarada ah especially dhalinyarada inay maxaa la ii sheeg sidaas oo kale ay dadkooda ama maxaa la ii sheeg xaasaskooda u garab istaagaan anigana dee waaba kana waa jeclaan xaaskayga maasha Allah waxna inay iska halaabeen adduunka inta aan u joogo
wixii la doono ha dhaco laakiin in waxba ka halaabeyna aaminsana 100%. waa sax waxa waaye ninka ragga lagu sheegayo ninka caqliga leh ninka kartida leh ninka reerkiisa ka adag waa ninka xaaskiisa wanaajinayo la tashanayo wax kasta u sheegayo fiiris Soomaalida dacaadoodu waxay tahay gabadha bis waa la soo guursada ilmaha laga dhalaa gabadha waxa waaye akoonka waa laga qarsadaa sirta waa laga qarsadaa wax kasta waa laga qarsadaa hantida ninka u helnaa kale ku raadiyaa laakiin xaq waxa iska leh xaaskaaga awlaad ugu horeysa ku dhashay of course waxa maanta heshiid wixii meel ku kala dhigmi karo waxa ku qasbantaa inaa noloshaada ku dhistid aad marka ma aragtay ninka ragga wallahi ninka naxariista badan waa nin horta fiiri ninka ragga inuu waxa la cadawgiisa wixii xun inuu adkaado waa sax laakiin ninka xaaskiisa inuu u jiljilicsanado waa waajib sababtoo xaaskaaga aad intay ku sameynayso xad ma lahan maxaa ku soo haray awlaadii ku dhalay guriga ku maamulay waxa waa ii sheeg shalay hooyadaa la nooleed shalay hooyadaa la joogta laakiin maanta agteeda joogtaa marka xaaska ayada laftirkeeda waxay leedahay mudnaan leedahay marka gabdhaha waxa in la qadariyo madaxa la saarta la ixtiraamo la xushmeeyo aaday u fiican tahay ninka duceysanaan isku dhaqmo wallahi sax waa been waxa nimanka oo dhan hadda waxay dhahaan anaga